maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ka dhacday controlka bariga oo ah in baabuur safar ahayd oo u socotay gobolada dhexe iyo gobolka mudug ay halkaa ku istaageen waxaan cadeynaynaa baabuurta anagu maanan istaajin ciidan hortaagana oo diiday inay gudbaanna ma jirto baabuurtaasi iyagaa diiday inay gudbaan arrintaasina waxay ahayd lacag yar oo lagu kordhiyey waxaa jirtay maridda ama transitka ay meesha ku marayaan lacagtaasi markii hore waxay ahayd $13 baabuurka candhamiidlaha ah dood badan iyo wada hadal badan markaan galnay waxaan go'aansanay waxay ahayd lacagtaasi lacag golaha deegaanka ee Garowe ay ansixiyeen kalfadhigoodii u dambeeyay dood kadib waxaanu ku ballanay inaan fariisino guddiga joogtada ah si ay wax uga bedelaan maantaan fariisinay guddiga joogtada ah waxay ka bedeleen lacagtii $13 ahaa waxay ka dhigeen $10 oo ahayd lacagtii asalka ahayd ee waagii hore lagu saleeyay lacagta laga qaadayo baabuurta gudbaysa marka doolarku wuxuu ahaa 20,000 haatanna waxa weeye 34,000 inflation baa ku dhacay sidaas awgeed waxaan go'aansanay inaan $10 ee asalka ah ee lagu saleeyay ku soo celino balse baabuurtii qaar ka mid ah oo raba inay baabuurtu gudbin shoobara ay sameeyaan laga yaabo inay dana kale uga hooseeyaan ayaa baabuurtii diiday kuwii gudbi lahaa oo lacagta goostayna ku khasbay inay joogaan oo yiri baabuurtiinu hadday gudubto oo ay gaarto buurtinle iyo meelahaas kale waa la gubayaa mana gudbi doonto sidaa awgeed waxaan rabnaa dadka inaan u cadeyno lacagta dawladda hoose waxay ahayd $10 oo $200,000 shilin Soomaali ah ku qiimeysnayd haatana $10 uun baa la saaray account sahal ah baa la dhigay halka ayaa lagu ridayaa si ay lacagta iyo xisaabtankeedu u fududaado dawladda hoosena ay wax ugu qabato oo danaha iyo service-ka ay ummadda u hayso ay ugu qabato waxaan rabaa in la wadaago magaalooyinka waaweyn ee gobolada madaxdooda ah Garowe iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso mid walba inta baabuurtaas ay bixiyaan magaalada Boosaaso waxay bixiyaan iyo Gaalkacyo lacag ka badan $33 oo ay siiyaan dawladda hoose laakiin Garowe waxay ka mudaharaadayaan $10 marka waxaad garan kartaan farqiga u dhaxeeya waxaadna dareemi kartaan waxa ay u dal leeyihiin inay tahay inay si gaar ah maaragtay ay rabaan inay u muujiyaan lacag baa Garowe kaga kordhiyay laakiin waxaan idin cadeynayaa lacagtaasi magaalooyin kalena inay intaas tahay Garowena intaa tahay lacag lagu kordhiyay oo kale ay jirin doolarkii oo awalba ay ku saleysnayd lagu saleeyay intaasna waxaan rabaa inaan maanta u cadeeyo dadweynaha maqlay in khilaafalka uu ka taagan yahay dakhliga soo gala dawladda hoose markii hore ila badan buu ka imaan jiray wuxuu ka imaan jiray lacagta percentage-ka horumarinta bilicda caasimadda iyo amnigeeda oo ka imaan jiray dawladda dhexe oo in dhaweyd gaabis ahaa wuxuu ka imaan jiray dad dhigista oo dad badan oo baasaboorada qaata ayaa jiri jiray ayaduna gaabis bay noqotay waxaa kaloo jirtay in magaaladu aad u dhismaysay oo dhul jeexa iyo cashuurta maxaa la dhulka ayaduna xilligan waxay ku jirtaa maaragtay caajis baa galay sida awgeed waxay u baahan tahay dawladda hoose service-ka ay ummadda u hayso nadaafadda amniga dhiraynta hagaajinta wadooyinka biyo ka saarista maxaa la yiraahdaa fayadhowrka kharash ay ku bixiso oo hawlaha ay ku socodsiiso ayay u baahan tahay intii aanan imanna 2 bilood oo mushahar ah ma ay helin sida darteed waxa laga maarmaan noqotay in la helo maaragtay dakhli ay dawladda hoose ku shaqeyso ayaan dhaweyd waxaa la saaray xoolaha nool gaar ahaan ariga waxaa la saaray 10,000 shilin geelana waxaa la saaray 60,000 shilin haddana baabuurtana $1 qiimihii uu ahaa baa lagu soo celiyay waxyaabo kale oo laga yaabo in wax la saarana way jirayaan ujeedada laga leeyahayna waxay tahay in service-ka ummadda loo hayo loo hagaajiyo iyadana loogu adeego waxaanu diyaar u nahay xisaabtan iyo inaanu xisaab celin soo sameeyno wixii la soo galay iyo siday ku baxeen aad iyo aad baa u mahadsantihiin